Beri baa waxaa jiri jirtay dad qalato la odhan jiray dhegdheer oo ku noolayd agagaarka boholaha xargageen ee dalka Soomaaliya. Caadooyinkeedii xumaa ayaa dhulka abaar ka dhigay. Dhulka oo ahaan jiray markii hore mid barwaaqo ah oo doog badan leh. Muddo aad u dheer degmadii roob kama di'in. Dhegdheer waxay ahayd qof aad u xoog badan oo sida dabaysha u cararta. Waxayna lahayd dhegdheer oo ay ka maqasho geela daaqaya meel 2 maalin loo socdo. Dhegteeduna waxay ahayd mid meel dheer wax ka maqashaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa dhegdheer waxay u baxday ugaadhsigeedii maalinlaha ahaa. Waxayna qaadatay masaar ama faash iyo jawaan ay dhabarka ku qaadatay si ay ugu ridato qofka ay soo disho. Kadib way dhaqaaqday. Waxayna tiri waa inaan ku baxaa gabadh yar oo geed galool ah hoostiisa harar ku samaynaysa. Sidaa ayay iskula hadashay. Kadib habeenkii waxay soo noqotay tii oo faramaran oo aan waxba gacanta ku dhigin iyo gaajo iyo jahawareer isku darsatay. Waxayna tiri maalin dambe ma soo noqon doono anigoo aan waxba gacanta ku hayn. Qofku haddii uu gaajoonayo ama uu haraadsan yahay soo ma doonayo inuu nasto ama biyo helo. Nasiibkaygu wuu iman doonaa ayay tiri oo ay ku tiri gabadheedii. Cawsi noo soo ururay ayay ku tiri si aynu u dhisno guryo oo loo moodo meesha meel tuulo ah oo dadku ku badan yihiin. Guryo badan ayay dhistay. Haanteedii bowdheerna waxay amartay inay ciddii furka ka furtaa ama haddii furka laga furo ay samayso qaylo aad u dheer si ay u ogaato cidda furtay ee ogaatay sirteeda. Kadib way seexatay iyadoo gaajaysan. Kadib waxaa soo martay gabadh sidata wiil yar oo socoto ah taasoo aad u daalan oo soo bartay jid dheer. Waxa ayna ku faraxday meeshan ama guryahan ay ku soo baxday oo waxay istiri waxaad ka heli doontaa cunto ama biyaad cabto. Waxa ayna u timiday inantii ay dhashay dhegdheer oo ay ku tiri biyo iyo cunto nasii. Gabadhiina waxay ku tiri hoo biyaha cab. Laakiinse waan idin marti soori lahaa oo cunto badan ayaa idin siin lahaa ee hooyaday waa dhegdheer. Inaad ka badbaadaanna lagama yaabo ee harartaa hoosteeda aan idin geliyo si ayna idin arag hooyaday. Haddii ay hurdada ka toostana waa idin cuni oo cidina idinka soo gaadhi mayso. Sidaa darteed hararta hoosteeda ayaan idinku qarinayaa. Gabadhiina naxdin ayay la gariirtay. Waxa ayna istiri waydinka maanta af libaax galay. Harartii ayay hoos gelisay gabadhii si ay u qariso. Waxayna istiri cunto u soo samee. Tiyo cuntadii ku sii socotaa ayaa gabadhii kuftay. Waxa ayna daboolka ka tuurtay haantii bowdheer. Dhegdheer ayaa maqashay. Waxayna tiri alla yaa furay ama yaa taabtay haantaydii. Gabadhii ayaa tiri hooy anigoo hilib solay ah ka saaranaya saab dusha sudan ayaan ku dhacay haanta. Dhegdheerna waxay tiri been ayaa ii sheegaysaa. Waxa ayna tiri tiyo sanka la raacaysa meelaha baruur ayaa ii uraysaa. Gabadhiina waxay ku tiri hooyo jirkayga ayaa ku uraya. Kadib waxay tiri been ayaa ii sheegaysaa. Waxa ayna tiri waxa ii uraya haddana gabadh yar baruurteeda. Waxayna tiri hooyo jirkayga ku uraya iyadoo qarinaysa gabadha iyo wiilka si ayna u cunin dad qalatadu. Dhegdheerna iyadoo xanaaqsan ayay kolba sanka meel la raacaysay oo dareensan inay guriga cidi joogto. Gabadhiina waa ay maqlaysaa sawaxanka iyo qaylada ka baxaysa guriga. Laakiinse iyadu waxay is leedahay naftaada ayaa kuu badbaadiya. Gabadhii ayaa soo baxday oo ku dul fadhiistay harartii. Waxayna ku tiri ordo yaaca si ayna idinku soo bixin hooyaday. Gabadhii way soo istaagtay. Waayna ducaysatay inuu Ilaahay ka badbaadiyo sharka dad qalatada dhegdheer. Ilaahayna waxa uu ku kaalmeeyay orod oo way oroday intii ay karaysay ama karaankeeda ahay.
orod aan kala go'ayn ayay oroday oo ay habeen iyo maalin cararaysay. Orod aad u dheer ayay oroday si ay uga badbaado dad qalatada, waxaana ay soo gaadhay toggii boholaha xargegan. Waxayna ku tidhi, togow ii furan. Waxa uuna isna ku yidhi, haddii aanad wax dembi ah lahayn waad i mari kartaa ama waad socon kartaa. Kadib waa ay dhaqaaqday, godkiina ama toggiina waa uu u furmay. Ilaahay ayay bariday oo way ducaysatay. Kadib dhegdheer ayaa soo dul istaagtay, waxayna ku tidhi, waxaan rabaa inaan gaadho baruurta ama dhaylada aan arkayo ee wiilka yar. Kadib toggii ayaa ku yidhi, haddii aanad wax dembi ah lahayn waad i dul mari kartaa ama waad i mari kartaa. Kadib waxa is tidhi, ka tallow ama dhaaf togga si aad u gaadho baruurtaa kuu muuqata ee gabadha iyo wiilka yar ee ay xambaarsan tahay. Toggiina waxa is tidhi, waad dhaafi karaysaa. Isna waxa uu ku yidhi, haddii aanad wax dembi ah lahayn waad i dhaafi kartaa. Kadib waxa is tidhi, wakaa kuu furmay. Markii ay dhexda marayso ayaa waxa dhacday inuu toggii labada qarba ay isku tagaan, ilayn dembigeedii weeyaane. Xargagina waxa ay noqotay meel aanu roobku ka qaadin oo uu ku da'o mar walba. Xoolihiina waa ay cayileen, dadkiina waxa ay tuman jireen heelooyin iyo dhaantooyin si ay ugu dabaal degaan barwaaqada. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar channelka.